السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عيال ليلة صهلي عيال يرير وقري شوقه يضد مغنطهي فيقوله وأنا لا صوت عاي أسكر بانو صوت هذا ويا بي ياب أسكر إذا عبد عمر وطه بيلهن بانو صوت عاي ما نقرن كرو لفكي تالي وحكيني ما قرن كرو waxaa qof bini aadan oo islaam ah leeyahay oo gurigiisa joogo rabadaan oo saddexdii habeenimo gurigiisa loo soo dhacayo iyo arrin yar oo cidla ah oo aan kaba maqnahay marka aan guriga joogin hadiiba loo soo dhacayo maxay noqon kartaa waa wax dadka xaaladda lagaga saarayo qofba ma garanaysa qofka bini aadanka wax laga raadinayo oo inuu dhib keeno iyo marka ma garanayo والله بالله وياه ويجدق لا إلى إمك ويجدق لا عرورتي الرجال مساكين تضحي كلهم عرورتي ويس استي أبدا مد بقول جدارد هردي عذارية وقولي عرورتي من الألين يا ويس السين ويا عيان ويبقين هياي ووري قفكي ده هور محيد كل عيب وهاسكرتي مركع أنيجا والله يحري هبين هري هدي اللي يحري wixii aan saliga ku arkay baan idhi saasa saliga ka jirtay qofka bini aadanka ana xaq afka lagama awdo qofka islaamka ana ilaahay wuxuu u abuuray inuu runta sheego hadii la yiraahdo runta ka baqa oo xaq ka waabta waa gaalooba marka waxba ma jiraan dhibina ma jirto hadii la soo ilaaleeyay la loodan laha saliga laga rabaa waa iman laha laakiin dhibkan jira iyo waxaan jira iyo doondoonkan iyo arrinta yar sabiga ee hooyadood maqan tahay saddexdii habeenimo loo soo daatay anu ma garan karo abiyar hooyadood safar ka jirto oo saddexdii habeenimo loo soo daatay ma garanayo waxa inta leeg iyo dhibka inta leeg aniga waa la xiray si bini'aadantinimada ka baxsan baa layla dhaqmay sheela la geliyay saliga dhexe oo dhistay ninkii la oran jiray Ingiriisku gumeystihii qolal yar oo dhistay kulaylaha aad aragtay shoolada waxba dhib idna kala ma xisaabtamin waxana dhib uma arag haddana markii la soo daayay markaan idin niman masaakiin ah meesha ku jira in saddexdii habeenimo carruurtayda loo soo daato waxaan u malaynayaa waa mas'uuliyad ayagu qaadi doonaan mas'uuliyadda ayaga qaadi